President. Yeah. So allow me to finish with the governor. The ones who have issues with the woman, you can come and resolve all the issues. Yeah. Tumalize, kila mtu ashike barabara. Otherwise I cannot just announce the result just like that. Yeah. Lete ya governor tumalize. Nani kuna hiyo? Tunataka nitangaze ile iko. Nitangaze ile iko. Unataka nitangaze? Angalia. Wewe leta hizo maforms. Kuja uone vile forms zinakaa. Okay, wewe leta hizo forms. Enta sasa. Maya. Usilete shida. Boss. Sawa, kaina hapa. Sawa. Tupatie hapa sasa hivi. Give you a share of the result what you allow. You result how much? Sasa sisi sasa wote tukaa hapa. Leteni hapa. Wewe unajua all the women. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay kuna mahadcelinaya Gavana Ali sida uu ila imaaday haddana idinku soo jeediyay inuu ogolaaday in maartay kursigii looga reeyay sida bini'aadanimada ay ku fiicantahay dadka hadda gaasil digana waa dad ehelko ah in muddo hadda waxay hayeen dhibaato weyn dad waaweyn oo madax ah oo Nairobi iska dagay ba aad waxay oo shaqeynayeen bayna caawda qiyaaween dhaxdooda fidma dhigaan waa meeshan imaatay wiilkayga ka qaad ninkan ka qaad wiilkayga igu bedel anigoo ogaaskii asaaliga cusubay inaan qabanqaabiyo ama horkaco dagaal reereed inaan horkaco kursiga oo cali maanta qeyrtay in looga reeyay saddex reer oo Soomaaliya sare iyo wixii halmaala oo reer Gaarisa ah ilmo isku ma bedeli kari wiilkan iga qaad wiilkayga gurigayga isii ma xamil aqoole ma aha maanta waxaan qalbiga ka go'ay dhibkii haye waxaan kaloo qirta ogaaday wixii aan ahaa baa maanta qaarkeeda 30 sano ku jira gurigan 30 sano afkayga indinkayga waa xirtay waxaan ka xirtay waxaan doonayaa Soomaali midnimadeeda ogaadeen iyo hilmadad ee la helaa kala qaaday Soomaali waxaan arkay Soomaali midnimadeeda arkaya Ali wuxuu muujiyay inuu daacad u yahay Soomaalinimadii ninka qaadi doono kursiga inuu walaalkiisa yahay buu qirtay u qirtay inuu macnaha uu ka ogolaado in la reeyay waxaan ka rabaa cawdaqo waxaatiin cawdaq waxaatiin ogaadeen waxaatiin waxay ka sii weynaa islaam baatiin hal magaalo waxa la qaybsanaysaan 42 ummadood ba waxa la qaybsanaysaan yaana dad yar oo hunguri rabo isku keendirin wala ka tagay adduunkan ito maanta joogna bari waa tagaynaa nin maanta adduunkan rasmi u joogi kara ma jiro walaalihiina si xishmadeeya waxaan maanta meeshan loo fadhino waxa way halka kursigaas wuxuu countiga Gaarisa ayuu dhanba iskale markii soo baxay markuu kursiga soo baxay waxaan u yeeray hal nin u yeeray ninkaas wuxuu ka ahaa bangiga madax ka ah oo kala imaad meel kale intuu la soo degay waa nadiif baan u yeeray wuxuu nadiifow wax baan sunnay isaga wax baan wadaagnaa nadiif hoos aan wax baan wadaagnaa jiiraankayga way waxaan ku warhooy meesha wax baa ka imaan doonaa gacan isii kursigan waxaan rabaa inaan xataa doorasho gelin waxa la tartamaysan 40 milyan yaa tartamaysan reer yar baatiin waxaan rabaa kursigan saddexdiina reer inaad tashataan hadbo aad igu kaalmee 5 sano reer la siiyo wixii uu watana aad qaybsataan kuraasta kale caadiga ah oo macnaha midmida ah kaas kala qaata laakiin kan dhowra way imaan kay weeydi waxaan ku yiri sideetan iyo horaan jira wali wax soo marin baa soo maray inaan liigu jaran liiga dhigto oo sameeyo dagaal bayna cawda iyo cawlihan
وكديده تاسيتو إلهي بان كالمي علي لو كالمي وحقرتي ديفيت أدبا ما سنت عليه شكرا باتاي وحاوي عوضه مالك هذا ماله إلهي بعدين كهريا ما أنت واجوتان أنت برينا مجوتان نو والبو أنتو ليه يبوك جري دون الروك نن دارك استادسون يقول واحد استشيغو nothing واحد ينتهي مجرتو وعنا إسلام لماذا حق لورا لماذا حق لورا خاصة عوض عولان ولا الويان سموضع لعوض ولا لشان لكن دخن أهان وحسودو عولان عوضاخ كالمية وحي صوقره نمت قليدا قاتا تاجيرا هذا وحكا ويسان صبر يشاء انت سيكون دار ما انت فرح بيتها علامات ان لحد سنة رادنا بايلاي تسي قارتي وتسي ان شاء الله سدح در ريربا وحن جعلها إنay مدوبان قاما يسقبصدان وحي أي ربان وطن أيكو وذا جرأة إنay كمودان إنay مردن بإستردون سيدا وعلي أسودي بي إنو والبا أسودي بي وكراسي السوكال ميو ووحي لولا لخيرها إلهي إذن بذي معناها دولتنا إن وحبك جيل الدقال دنبه إن سنجرين inaad kaalmaysaan ayakana waxaan u rajaynaynaa maanta Kenya waa dhibaataysan tahay in sha Allah si muwaafaqa ah ay ku soo saaraan ninkii madaxweynahooda hal wasalaam soo dhawaada abo fatax